qaadkani ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada booliska ee gobolka Awdal ayaa ahaa jaadkii ugu badnaa ee la qabtay isagoo si qarsoodi lagu soo gelinayo magaalada Boorama waxaana si wada jira goob fagaara ugu gubay gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali taliyaha qaybta booliska ee gobolka iyo xubno ka socday wasaaradda maaliyadda oo ciidamada booliska ka taageeray qabashada qaadkani jaadkani oo ahaa kii saddexaad ee la gubatan iyo muddadii ay gudida heer qaran ee ka hortagga cudurka coronavirus ay amartay in la xidho qaadka soo galaya dalka Somaliland si looga hortago faafidda cudurka coronavirus waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay taliyaha qaybta booliska ee gobolka Awdal gaashaanle sare Cabdiraxmaan Nuur Colhaye waxaana uu faahfaahin ka bixiyay qaadkani ee eedeysanayaashii lagu soo qabtay annagoo fulinayna amarka mas'uuliyiinta heer qaran amarka taliyaha ciidanka booliska ayna tahay inaan sidiisa u hirgelino ku dhaqanno waxaanu mukhadaraadka ku soo qabanay dad ka dhaga adeegay inay amarka qaataan wixii gaadiideen haynana maxkamadan horgeyn doonaa cagtii ama deglihiina waxaanu u gudbinay maxkamadda inna way xidhxidhan yihiin sharcigaanu waafajin doonaa waa maalintii saddexaad in gobolka gubno mukhadaraad jaada intaana waanu digaynay waxaan leenahay cidda dambe eanu ku qabanay dheg jaada gobolka Awdal inaan u taxaabi doono xabsiga Madheera iyo xabsiga Laascaanood inay ku mutaysan doonaan sidoo kale Axmed Cali Gaxnuug oo ka socday wasaaradda maaliyadda oo door muhiim ah ka ciyaaray qabashada qaadkani ayaa sheegay annaga waxba ma aan qaban waan idin caawinay waa idin la hawl galay waxa amaanta iyo qabashada iyo hawshaale gudoomiyaha taliyaha qaybta maamulaha kastamka annaguna waxaan ku sineeyay dhamaan ciidankaba iyo saxaafadda lafteeda iyo dhamaan dadweynaha reer Boorama oo ka qayb qaatay inaan mukhadaraadkaasi magaalada soo gelin maadaama dawladdu mamnuucday aad baan idinku mahadinaynaa gudoomiye iyo taliye sidaas aynu u wada shaqeyn doonaa wixii ka dambeeyana saas baynu u gubi doonaa cidii awaamirta qaadan weydana sharcigu ma marinayna ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa sheegay cadadka jaadkan sidoo kalena tilmaamay inay sii wadi doonaan la dagaalanka qaadka kontrabanka ah ee la soo gelinayo gobolka Awdal annagu fulinayna awaamirtii ka soo baxday gudida COVID-19 ee uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland waxaanu halkan maanta ku qabanay qaad fara badan oo kor u dhaafaya 1,170 marduuf oo waaweyn iyo yaryar ba isugu jira waa qaadkii ugu badnaa runtii aan ku gubnaa halkan cid kasta oo gacan ka geysata mahad baan uga naqayaa soo qabashada qaadka ciidanka booliska mahad baan uga naqayaa oo ay waajibaadkooda iyo shaqadooda tahay inay qabtaan wixii mamnuucaada iyo wixii kale ee sharci darro ah inay iyagu qabtaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waftiga wareegayay ee soconayay ee maaliyadda ah oo aad iyo aad noo gacan siiyey oo nala shaqeeyey waxaan leeyahay wargaxay gaadiidkiina iyo naftiina ku khasaaraynina lama deynayo cidii la qabto waana la xidhayaa waa la gubayaa balaag waa naftii oo la xidhayo waa gaadiidkii oo hantiya la wareegayo waa qaadkii oo hanti ku jirto oo la gubayo waa wax yar oo muddo yar oo koobana وعبد السلام ساها وربعين تقرن كسوماليلان مقالة بورما